wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawadootaan waxaa ka mid qodoora dowladda Imaaraadka Carabta oo weli kulamo siyaasadeed la qaadanaysa qaar ka mid ah madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya guddiga aruurinaya dhaqaalaha guriga loogu dhisay farmaajo oo qirtay inay qalad galeen muxuu yahay qaladkaasi iyo laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga UPD oo xilka ra'iisul wasaaraha loo saadaalinayo iyo saadaasha kala duwan ee laga bixinayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jirta ayaa daawadayaal warka janaalkeena xogta idinku soo gudbin doona hadaba daawade hadii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share iyo comment-ga ugu dadaala ku bilaabo qodobka ugu horeeya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxay weli Muqdisho ay ka wadaa kulamo siyaasadeed oo ay la qaadanaysa qaar badan oo ka mid ah madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa doonaysa in angalkeeda siyaasadeed ee hore in mar kale ay ku yeelato Soomaaliya xilli saaxadda siyaasadda shantii sare ee ugu dambeysay dowladda Imaaraadka Soomaaliya ay ka degtay waxaana hadda la sheegayaa in ay xiriirka Soomaaliya Imaaraadka Carabta uu mar kale uu dib u bilaawday iyadoona qorshahan ay wadato dowladda cusub uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararka ayaa waxay tibaaxayaan in dowladda Imaaraadka Carabta ay gabi ahaanba go'aankeedu uu yahay inay gabi ahaanba ka taqlusiyaan cid kasta oo ka soo horjeeda hanaan siyaasadeedkooda tanina waxay u muuqataa in ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay si weyn kaga hadlayaan go'aanka ay qaadan karto dowladda Imaaraadka Carabta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa rabtay in malaayiin lacag ah ay Soomaaliya ay ku bixiso malaayiintan lacagta ah waxay rabtaa inay ugu deeqdo dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa bilihii ugu dambeeyay jiray in cilaaqaadka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu mar kale dib u soo hagaagayo kadib markii meesha laga saaray nidaamkii hore ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku micneynayaan in ay doonayso Imaaraadka Carabta iyana in ay muddo ay maamusho hanaan siyaasadeedka Soomaaliya isla markaana ay xiriiro dhow la yeelato dowladda federaalka Soomaaliya shantii sane ee aan ka soo gudubno farmaajo dalka madaxweyne ka ahaa waxaa si weyn Soomaaliya xiriir wanaagsan ula lahaa dowladda dalka Qatar oo lagu eedeynayo dilka injineer Yariso Allah u naxariistay iyo sidoo kale kiisas fara badan haddana wararka ayaa waxay tibaaxayaan in dowladda Imaaraadka Carabta durba go'aankeeda ugu weyn uu yahay xifaaltanka ay kula jirto dowladda Qatar in ay gabi ahaanba kaga awood badiso Soomaaliya maamulideeda madaxda Soomaalida oo hal dhag wax ka maqla oo ku aadan dhagtaasi ay tahay wadamada shisheeye ayaa haatan waxay u muuqanaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga yaabo in dhagaha uu ka fureysto dowladda Imaaraadka Carabta yoolka ee Soomaaliya ee ka leedahay waxaan la ogeyn wax waliba meesha ay ku dambeey doonaan laakiin Imaaraadka Carabta malaayiin lacag ah ay doonaysaa inay ugu deeqdo dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax kulan ah oo la qaadan madaxda sare ee wadanka Imaaraadka Carabta haddana dadka siyaasadda Soomaaliya saadaaliya ayaa waxay sheegayaan in dowladda Imaaraadka Carabta mas'uuliyadeeda ugu sarsareyso oo kulan gaar ah oo la yeelan doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulamadaasi ayaana looga hadli doonaa dardargelinta iyo sidoo kale horumarka Soomaaliya ay ka doonayso Imaaraadka Carabta inkastoo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh dhaqaale darri aad u xoogan ee haatan ay soo wajahayaan haddana waxaa dhaqaalaha ugu badan ay ka heli doonaan dowladda Imaaraadka Carabta iyadoo dowladda Qatar ay gabi ahaanba xiriirka u jirtay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kalena guddiga dhaqaalaha u aruurinaya guriga loo dhisay farmaajo ayaa qirtay inay qalalaad ay galeen agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay sida uu socoto howsha dhaqaale aruurinta loo sameeyo guriga loo dhisay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi in ay wax tabasho ka timid qorshaha lacag aruurinta ay wax ka bedeli doonto rajada iyo sida ay wax waliba u qabaan in qalad kasta oo jiro lagu sixi karo maadaama kooxdan lagu eedeynayay in ay dadka Soomaaliyeed ee dhibaato badan qabaan isla markaana u ololeynayaan inay farmaajo guri ay u dhisaan
shacabka Soomaaliyeed oo meel walba oo ay joogaan waxay ugu mahadcelinayaan sida wanaagsan ay ugu qaybgalayaan ololaha mahadsanidin ayuu leeyahay madaxweynuhu sida uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo looga baahnaa in uu u damqado shacabka Soomaaliyeed baahiyaha qaba iyo dhibaatooyinka kala duwan ee haatan haysta ayaa waxa uu muuqanayaa shakhsi dantiisa oo kaliya eeganayo inkastoo kooxda CPB-da ay hadda ay u muuqanayso koox fashil dhaxda ay ka taagan maadaama dalka Soomaaliya abaar ba'an ay ka jirto isla markaana Soomaali badan ay dhamaanayaan haddana kooxda CPB ee Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo hoggaanka isteerigeeda uu hayo ayaa waxa ay ku hanweyn tahay in guri qasri ah loo dhiso Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadka ayaa si weyn u hadal haya qaabka ay u dhaqmayso kooxdan iyo dhibaatooyinka bulshada Soomaaliyeed haatan ay dhaxda ay kaga jiraan waxa qof waliba ay la socotaa dareenka iyo sida ay wax waliba u dhaqmi karto kooxdan iyo xaaladaha adag ee markasta bulshada Soomaaliyeed ay la kulmayaan walow dadka ay si weyn ula yaabeen go'aanka ay qaadatay kooxda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kuna tilmaamtay dhibaato badan oo bulshada haysato iyo wax qabasho la'aanta kooxdan iyo hab dhaqanka haatan bulshadu ay kula dhaqmayso waxaan la ogeyn wax waliba sida ay noqon doonaan iyo go'aan kasta sida uu isku bedeli karo dadka ayaa waxay wada sugayaan in ay isbedelo degdeg ah u yimaado dalka hase ahaatee uma muuqanayso in isbedel wanaagsan uu dalka imaanayo maadaama kooxda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo danteeda uu kaliya uu yahay sidii ay ku heli lahayd lacag isla markaana guri qasri ah ee u dhisi lahayd Farmaajo waxaan wada sugaynaa wax waliba sida ay isku bedeli karaan dhanka kalena laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga UPD ayaa xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo saadaalinaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa isha lagu wada hayaa shakhsiga uu noqon doono taasi oo siyaasiyiin badan ay wada raadinayaan xilkan hadda guuxa jira ee laga dareemayo madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay in laba shakhsi oo ka tirsan xisbiga UPD ay u badan tahay midkood in xilkaasi la siin karo Maxamed Ciise Keenan oo ah madaxa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaare ka ahaa Xasan Cali Kheyre ayaa laga yaabaa in xilka wasiirka koowaad ee Soomaaliya loo magacaabi karo sidoo kale waxaa isna dab yar aan shidi doonin oo jagadaasi ay macquul ay tahay in loo magacaabo Guuleed Saalax Barre oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ayaa isla macquul ah in xilkaasi loo igman karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa laga sugayaa in uu kala shaandheyn uu ku sameeyo liiska siyaasiyiinta isku soo sharaxay xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa xitaa liiska soo galay ganacsade Maxamed Qoraxey oo ka soo jeeda Jubbaland kuna dhashay degmada Afmadow ayaa laga yaabaa in xilka ra'iisul wasaaraha cusub loo magacaabi karo labada siyaasi ee ka soo jeeda Puntland ee Guuleed iyo Keenan waxaa diidan midkood in loo magacaabo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sida uu xigasho aan halkaasi aan ka helayno wararka ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in sidoo kale loo magacaabi karo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inkastoo dadka sida weyn uga agdhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay kula talinayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inaanan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo magacaabin Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wax walba way jiraan dadkuna waxay wada sugayaan xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cidda u magacaabi doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh ayaa laga wada sugayaa cidda sida saxda ah ugu magacaabi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maadaama ay dadku si weyn ay indhaha ugu wada hayaan qofka saxda ah u soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waa naga intaa haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share iyo commentiga noogu dadaala waadna mahadsantihiin nabadgelyo.